galabta waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey garoonka kubadda cagta ee jigjiga tartanka sideedaad ee gobolada iyo maamul magaalooyinka kaasi oo ciyaarta kama dambaysta ay fiinaalka iskugu soo hareen maamulka magaalada jigjiga iyo gobolka jarar oo koobkani difaacanayay. ciyaartani waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxa xiriirka ciyaaraha federeeshinka ee Ethiopia Isaasu Jara iyo xubno kale oo ka socda qaybaha kala duwan ee dowladda. kulankan waa mid xiiso leh isla markaasna ay kumanaan kun oo taageerayaal ay ka soo qayb galeen. ciyaartoyda kulankan isaga hor yimid ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan ay ku qanceen taageerayaashii u soo daawasho tagay ciyaartan, waxaana ciyaarta hoggaanka markii hore la wareegay maamulka magaalada Jigjiga kadib markii uu goolka koowaad u dhaliyay ciyaaryahanka Maxamed Cabdifitaax lagu naaniso Firaati. laakiin gobolka jarar oo dadaal badan sameeyay ayaa goolka barbarada keensaday kaasi oo u saxiixay xidiga lambarka 8 u qaata ee Sasa, waxaana ciyaartu ay noqotay mid labada dhinacba ay fursado badan abuureen. inkastoo ka hor xilliga nasashada inta la gaarin ay heleen goolkulaad maamulka magaalada Jigjiga isla markaasna ay hoggaanka la wareegeen, haddana markii la isku soo laabtay ayay barbaro ay heleen gobolka jarar kaasi oo u saxiixay ciyaaryahanka Arabo. ciyaarta ayaa ku soo ilaatay 2-2 oo labada dhinac isla dhaafayeen 90 daqiiqo ee loogu talagalay. barbarada labada dhinac ay keeneen waxay ka fursan weysay in goolkulaad la isla aado, iyadoo goolkulaadkaasina ay guusha ku raacday maamulka magaalada Jigjiga oo markii ugu horeysay tartankani gobolada ku guulaystay. madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo Isaasu Jara oo ah madaxweynaha xiriirka ciyaaraha federeeshinka Ethiopia ayaa guddoonsiiyay koobka maamulka magaalada Jigjiga oo ku guulaystay tartankani ciyaaraha ee sanadkan. tababaraha ugu fiican ee tartankan waxaa la guddoonsiiyay tababaraha xulka maamulka magaalada Jigjiga, halka goolhayaha iyo ciyaaryahanka ugu wanaagsan ay qaateen ciyaaryahanka guuleed oo ah xidiga lambarka 5 uga ciyaara maamulka magaalada Jigjiga iyo goolhayaha maamulka magaalada Jigjiga oo asna loo caleema saaray goolhayihii ugu fiicnaa ee tartanka sideedaad ee ciyaaraha gobolada iyo maamul magaalooyinka. wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladdeegaanka Soomaalida mudane Cumar Siyaad Ibrahim ayaa ka warbixiyay guud ahaan tartankan oo galabta la soo gabagabeeyay. waxa ay farxada maanta inay guul ku soo gabagabowday tartankii ciyaaraha ee sideedaad ee dowladdeegaanka Soomaalida ee gobolada iyo maamul magaalooyinka. tartankaas oo ahaa tartan ka xamaasad badan tartaranadii hore, qaabkan uu soo agaasinay uu ka duwaneed qaabashii hore oo waxa weeyaan heerka ciyaaruhu ay ka soo bilaabmeen hoos bay ahayd, tuulooyinkii qabalayada degmooyin heer gobol ilaa tan aan maanta soo gaarnay. taas waxay kaga duwaneed ciyaarihii hore. talabaadna waxay ahayd barnaamij si toos ah loo daawado live oo markii ugu horeysay deegaanka aan ka hirgelinay oo annagana guul weyn haddaan xafiiska dhalinyarada ciyaaraha noo ahayd. ta saddexaad systemka live-ka oo la socday systemka maaragtay VAR ama waxa weeyaan kaaliyaha garsooraha oo dalka hadda ka hor aan marnaba hawsha laga isticmaalin. waxa kale oo guul ah sida anshaxa wanaagga iyo quruxda leh ee waxa weeyaan daawadayaasha iyo kooxuhu intooda badan ay waxa weeyaan u soo bandhigayeen ciyaarta iyo taageeradaba. muddada uu socday si guud markaan eegno waxa uu socday muddo dhan waxa weeyaan bil ku dhow waa 28 bari 28 bari 29 bari meelahaas. guushuna waxay ku raacday qoladii martida loo ahaa ee magaalada Jigjiga oo ahayd markii ugu horeysay waxa weeyaan ay magaalo qaado iyo markii ugu horeysay magaalada Jigjigana ay si guud ah qaado. annagana farxad bay noo ahayd. waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo guud ahaan cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu hirgalo tartankan ciyaaraha sideedaad ee sida quruxda badan loo soo agaasimay. ciyaartoyda isugu soo haray fiinaalka tartankan ayaa iyaguna fikirkooda la wadaagay, waxayna sheegeen dhammaantood inay aad ugu faraxsan yihiin in tartankan uu si nabadgelyo ku soo dhamaado. anigoo magacaygu yahay Fadhi Ismaaciil Sare kala tirsan gobolka Jarar, waxaan hambalyo leeyahay maamulka magaalada Jigjiga oo maanta laga guulaystay koobkiina laga qaaday. kulankii kii ugu horeeyay maaha ciyaar group stage labada ka soo baxno ciyaarta hore eber bay tan maanta laba penalty naga qaaday koobka. marka taas waxay cadeynaysaa inaan ahayn labadii tiim ugu awoodayna tartanka gobolada. waa farxad aan arko tii ugu weyneed oo koobkii labada nimaada finaal la qaado anoo da'yar wali banaaga soo kacaya. wallahi moraalkiga 100% bal 100%. bal jaranjarooyinka soo marteen ka horsay. wallahi jaranjarooyinka soo koobka aad iyo aad baan u soo dhiboonay. dhooxayga ku dhamaaday koox badan adag noo saarnay faafo ma saarnay jarro saarnay ilaahay noo ka nawaashir koobkii. kooxdii kugu adkeyd ee dabcan aad soo wajahday tartankan intuu socday kooxday had baslada. kooxdii ugu adkeyd waxay ahayd jarar baa ahayd. laba kulama soo dhiminay groupkii soo dhiminay groupkiina barbaro eegana barbaro penalty baa ayaa dhacaaway annaga. kooxdaas oo nawaadkeedana